sidee baa bulshada waqooyi bari gaar ahaan reer Sanaag uga faa'iideysan karaan fursadaha siyaasadeed iyo kuwa horumarineed ee xilligan jira ma ku baraarugsan yihiin waaqaca iyo tartanka cusub ee dalka ka jira iyo dhaqdhaqaaqyada wadamada daneeya iskaashiga iyo maalgashiga ma og yihiin in dawladda Soomaaliyeed iyo wadamada la xulufada ah u arkaan in deegaanada waqooyi bari gaar ahaan Sanaag ay yihiin dhul muhiim u ah ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed iyo xulufada la jaalka ah maxaa keena in bulshooyinku ay ka faa'iideysan waayaan fursadaha soo mara hoggaanka haldoorka iyo aqoon-yahanka reer Sanaag maxaa la gudboon mase waxa ay fursadani la mid noqon doontaa fursadihii hore loo dayacay oo ay ka mid ahaayeen mashruucii sadra qorshihii dhismaha dekedda warshadii kalluunka iyo kuwii la midka ahaa ma og yihiin qiimaha siyaasadeed dhaqaale iyo midka bulsho ee ay leeyihiin in deegaanka laga hirgeliyo xafiisyada dawladda dhexe iyo helidda kaabayaal dhaqaale nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u feejigno dhambaal waa faalooyin maqal iyo muuqaal ah barnaamijkan waxaa soo diyaarisay xarunta hadaf ee cilmi baarista iyo horumarinta